midna malabka wuxuu ku iibin jiray carab kharaar oo khalka oo kala ah halka kan khalka gadana uu ku iibin jiray carab macaan oo sida malabka oo kala ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran channelkeena soo dhawaada walaalayaal. Waxaa jiray laba nin oo ganacsato ah. Labadaas nin waxay ahaayeen laba nin oo daris ah oo ganacsigooda uu daris yahay oo is yaqaano. Labada nin mid ka mid ah wuxuu gadi jiray malab halka kan kalena uu gadi jiray khalka cuntada lagu darsado. Arrinta yaab kale ayaa waxay ahayd in qof walba uu ku leexanayo ninka khalka gado oo khalka laga gadanayo halka ninkii malabka gadayayne qof soo istaago oo wax ka gata uu waaye. Maalintii dambe ninkii malabka gadayay waa uu fikiray waxa uuna isiri ninkan sababta uu kaaga dadbatay ee adina wax ku ag imaana aad u laadahay waxa laga yaabaa malabkaaga inuu qaali yahay. ninkii wuxuu go'aansaday malabkiisa raqiis inuu ka dhigo sida ninka khalka oo gada oo kale yacni lacagtu ku gadayo oo kale inuu malabka ka dhigo si uu dad u helo. ninkii malabkii ayuu raqiis ka dhigay oo qiimo aan malabkii la gedin oo asba ugu fadhinin ayuu ka dhigay si uu dad u helo. waxaa dhacday wali inuu qof agtiisa soo istaagi laayahay. maalintii dambe ninkan waa uu yaabay waxa uuna yiri ninkii ay dariska ahaayeen oo khalka gaday intuu u tagay ayuu ku yiri walaalow adiga khal aan macaan ahayn ayaad gadaa dadko idilna adiga ayay ku imaanayaan anigana waad ii jeedo waxaan gadaayay malab hal qof oo isoo ag istaagayna ma leh xitaa malabkii waa raqiisiyay oo qiimihiisa qiimo ka hooseeyo ayaan ka dhigay tayadiisana waa u wataa waana malabkaas macaan bal maxay dadkii adiga kaaga gadanayaan oo anna iga gadan la'yihiin. ninkii khalka gadayay wuxuu yiri hadal cajiib ah waxa uuna yiri aniga waa sax khal ayaan gadaa oo khalka waxaa ka macaan iskumana dhigmaane malabka adigana waxaad gadaa malab oo macaan oo khalkan ka macaan laakiin arinta aan ku dheerahay ayaa waxay tahay aniga khalkeyga asoo kharaar uu yahay waxaan ku gadaa carab macaan yacni hadal wanaagsan ayaan dadka ku soo jiitaa laakiin adiga adoo malab macaan gadaya ayuu carabkaaga kharaar yahay yacni hadal wanaagsan oo dadka soo jiita ma dhahdid. ninkii hadalkii ayaa aad u saameeyay waxa uu isku dayay in uu dabeecadiisa bedelo oo uu hadal wanaagsan dadka kula dhaqmo. waxaa jira dad badan oo saas ah laga yaabo in aad wax wanaagsan haysato laakiin hadalkaaga iyo dabeecadaada ay wanaagsanaanin balse waxaa laga yaabaa qof wax xun haysto ama aan ku gaarin in uu ka wanaagsan yahay oo ka shacbiyad badan yahay oo ka dad badan yahay waxa la isku dhaafay waa hadalka wanaagsan. fadlan haddii halkan soo gaartay muuqaalka like inoo saara kuna saliya xabiibkeena Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad.